بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحمد waxaan sii wadanaynaa darsigii calculus 1. Ciwaanka darsigan wuxuu qeexayaa infinite limits at infinity. Tan yacni macnaha wuxuu ka dhigan yahay x-tiina waxay u socotaa infinity, y-diina waxay u socotaa infinity. Waxaan fiirinaynaa marka iyada sida looga shaqeeyo. Okay, kowda hore waxaan rabaa inaan kugu soo koobo jadwalkan, inaan kugu soo koobo sida ay labadooda noqonayaan markaad ka shaqeynayso. Okay, jadwalkan waxaan u kala qaybinaynaa laba baart. Labada baart waxay tahay marka yacni n maray tahay even iyo maray tahay n odd tahay. yacni maxaa loogala jeedaa marka intan inta waa powerka. Hadda meeshan saa aragto, meeshan wuxuu ku siiyey limit x mar walba waxay u socotaa plus and minus ax n to the n. intan markay tahay kisi tahay iyo markay tahay dhaban iyo markay tahay kisi, labadaasaan fiirinaynaa. iyo eedan naftirkeeda marka ay ayadana laba qaybo tahay, eedan markay ka weyn tahay 0 iyo eeda markay ka yar tahay 0. muxuu noqonayaa limitka markaas? muxuu noqonayaa? maxaa soo baxaya hadday eeda ka weyn tahay hadday ka weyn tahay 0 ayna tahay powerka x-na ay tahay even ama dhaban ay tahay, maxaa iisoo baxaya marka? limitka iisoo baxaya muxuu noqonayaa? graafka sawirkiisa horta wuxuu noqonayaa saas. saasuu noqonayaa, waxay dhahaan parabola ay dhahaan. saasuu noqonayaa graafka sawirkiisa. muxuuna noqonayaa marka limitkii wuxuu noqonayaa limit x waxay u dhowaanaysaa nirisamaha labadaba markay tahay plus iyo minus ba markay tahay, plus iyo minus infinity markay tahay, x ay u dhowaanayso ay u socoto dhankaas. ffx maxay noqonaysaa? ffx limitka kuusoo baxa wuxuu noqonayaa maa laa nihaaya ama infinity oo plus. labadan shardi waa in laga helo. eedan waa horgalaha oo x-ta. fiiriya, eedan meesha noogu taalla markay ka weyn tahay 0, inta powerka x-na waa arki doonaa, waxaan ku arki doonaa misaalada. inta oo powerka x-na ay tahay dhaban tahay, limitkaaga graafkiisaanu u sawirmaya. limit ahaana waxaa kusoo baxaya mar walba plus infinity. negative infinity kuma soo baxayso. mar qiimaha x mar ha noqoto, hadday rabto plus infinity ha noqoto ama negative infinity ha noqoto. ama laakiin markay odd tahay powerka muxuu yahay? wuu ka duwanaanayaa. graafka wuxuu noqonayaa saas. okay, limitkiisa muxuu noqonayaa isaga? limitkii laba qayb u qaybsamayaa, mid plusa iyo mar minus. markuu yahay pluska x markay u socoto plus infinity, ffx waxay noqonaysaa plus infinity. laakiin limitka haddii x ay u socoto negative infinity, ffx wuxuu noqonayaa negative infinity. taasna waa inaa maskaxda ku hayso. labadan shardi markay meesha isugu yimaadaan, ay ka weyn tahay 0, n oo powerka x-na ay odd tahay ama ay tahay kisi, labadan graafka saan u sawirmaya. markuu saan u sawirmo dee waa iska caddahay. dhankaana waxaa waaye waa
plus infinity, dhankaana waa minus infinity. labadoodu marka inta waxay ka yihiin plus, intana waxay ka yihiin minus. taas waa inaa maskaxda ku haysa. labadan limitka labadan qiimo yaallaa, marna minus markuu u socdo negative infinity waxaa soo baxaysa minus, markuu u socdo plus infinity waxaa kusoo baxaysa plus infinity. laakiin markay ka yar tahay x markay ka yar tahay markay ka yar tahay zero maxaa iisoo baxa iyadan? okay, markay ka yar tahay graafka wuxuu u sawirmayaa oona ay tahay n even tahay, graafka wuxuu u sawirmayaa sidan, paraboladii oo hoos loo sawiray waay oo kaas. graafkii saasuu noqonayaa. limitkii muxuu noqonayaa marka? limitkii wuxuu noqonayaa isagana x markaan labada dhinacba ha u socoto minus iyo plus midkay rabta ha u socoto, muxuu noqonayaa limitkiisii? limitkii wuxuu noqonayaa f of x waxay la mid tahay minus infinity. okay, markay tahay n odd tahay oo ana ay ka yartahay zero muxuu noqonayaa isaga? sawirkiisa wuxuu noqonayaa tii hadda aan sawirayno kale, laakiin dhanka kale u sawirmaysaa, waxay noqonaysaa saas. graafkii saasuu u sawirmayaa. laba qaybood ay kala noqonaysaa, nafsi sidii haddaayoo kaleeto. waxay noqonaysaa midda koowaad limit, mar haddaa aragtaba labada dhinac iyadoo kala aaday oo labada istilaabka dhinacyadiisa kala aaday waa minus iyo plus, labadooda saasay u kala qaybsamayaan. limit x markay u socoto infinity oo muujaba f of x waxay noqonaysaa, f of x waxay la mid tahay minus infinity. fiiri, markii oo limit f of x ay u socoto muujab infinity, cagsiga isku noqonaya waa negative infinity yaa kusoo baxayso. markay limitka x uu u socdo negative infinity, f of x maxay la mid noqonaysaa? limitkii maxaa kusoo baxaya? plus infinity. intaan maskaxda ku hay. labadan shardi haddii ay qaadato oo labadan powerkana uu yahay ama dhaban yahay ama kis yahay, sidaana u kala saaraysa. okay, meeshan waxaan ka tegay infinity. okay, markii sidan ay u dhammaato tableka aan samaynay, meeshan soo fiiri, hadda kan fiiri, markii la yiraahdo markii hadda meeshan lagu leeyahay tan minus infinity ay noqonaysaa f of x, yani waxay tahay y-da fiiri labada dhinacba waxay ka tahay minus, leanno meeshan hadda graafka fiiriso labada dhinacyadan dhan markii graafka la sawiro dhinacan oo dhan waxa waaye korkan waa plus, nuqdada zero wixii ka koreeyo, zeroga wixii ka koreeyo waa plus, zeroga wixii ka hooseeyana waa minus. graafkan markaa fiiriso y marka waxay noqonaysaa labada dhinacba waxay ka tahay minus, saasay waxay u noqotay negative infinity, saasay u noqotay meeshan. tanna waxay negative plus u noqotay, labadaba waxay u socdaan kor, y qiimayaasheeda waxay u socdaan kor oo ah qaybta pluska y labadaba ku aadan yihiin. haddii laga fiiriyo dhinaca xta minuskeeda iyo dhinaca xta pluska, labadaba marka laga fiiriyo saas waa wix lagu siinayo plus iyo minuska meeshan. waa hadday x dhinaca minuska u socoto iyo dhinaca minuska hadday u socoto iyo dhinaca pluska hadday u socoto, labadaba y waxay noqonaysaa plus infinity. tan marka lagu kala saarayo waxaan niri qaybtan kore waad aragtaa kore u socotaa oo qaybta pluska oo y-da, qaybtanna waxay u socotaa qaybta minuska oo y. marka adiga waa inaad kala saarto, laba xaba ka kala dhigto oo tiraahdo markay x plus tahay plus oo infinity ay u socoto, y waxay u socotaa plus infinity. markay x u socoto minus infinity markay u socotona y waxay u socotaa minus infinity. tanaa kuu saarto ugu dambeyso. tan waxay cagsi u noqotay waxaa waaye, oo markay tan tahay pluska ay tanna minus u noqotay waxaa waaye, inta fiiri
x markay dhanka balaaska u socoto way qiimayaasheeda intay u socdaan dhanka minuska. Saasaa marka waxaa loo yidhi minus infinity. Dhanka infinityga x markay u socoto y-da waxay u socotaa markaad meeshan fiiriso minus infinity. Minus infinity x markay u socoto y-da waxay u socotaa plus infinity. Saasay marka labadoodana isu daba mareen. Marka waxaan oo dhan markaad aragto limit lagu siiyey x horgelihiisa hadduu ka yar yahay hadduu ka weyn yahay zero, yani waxay tahay zero wixii ka weyn waa 1 2 3 4 5 saasoo kala, iyo x mathalan waxaa lagu siiyey 3x, mathalan waxaa lagu siiyey 3x powerkeedana 2 tahay oo limida x-na waxay u socotaa ee lagu yiri infinity. Mathalan maxaa kuu soo baxaya hadda ku bedel bahda meeshan, haddaad ku bedesho meeshan maxaa kuu soo baxaya, waxaa kuu soo baxaya limitkan soo saar hadii lagu dhaho waxaa kuu soo baxaya inta haddaan ku bedelo infinity x-tan haddaan ku bedelo infinity oo 3 lagu dhuftay waa infinity, infinity yaa kuu soo baxaysa. Hadday inta ahaan lahayd hadda haddaan dhaho meeshan 3 haddaan dhaho mathalan ama meel kale ku qoro inta ku qoro, haddaan dhaho limit 3x cube x-na waxay u socotaa haddaan dhaho minus infinity, limitkii maxaa ii soo baxaya, limitkii waxaa soo baxaya ilaa infinitygana waxaad ku bedeleysaa meeshan x-ta. Okay, markaan infinitydan meesha x-ka ku bedelo wuxuu noqonayaa marka limit 3 minus infinity cube x waxay u socotaa minus infinity. Okay, tan minus infinitygan saddex mara la isku dhuftay waa minus, marka meesha maxay soo baxaya minus infinity. Soo ma jeed minus infinity ay soo baxay waa ka marka fiiri waxaa la rabaa marka meeshan haddaad fiiriso minus infinity waa inay minus infinity soo baxdo, waata minus infinity soo baxdo. 3dan waa eeda u dhigantaa ama eedo waa yani wixii x hortiisa galay waana eedo sida meeshan aan ku sheegnay waa 3. 3dan waa plus aan u jeedno oo 0 way ka weynta, marka shardigu muxuu ahaa inuu minus infinity soo baxo waana ka minus infinity soo baxay. Saasay ugu dabaqmayaan waa ina saa u ogaato marka. Okay, meeshan waata iyadoo lagugu soo wada gaabiyey waxaa la yidhi limitka x markay u socoto infinity u socoto oo muujib iyo minus labadaba plus iyo minus midkay rabtaa noqotee x infinityga limitka meesha ffx waxaa kuu soo baxay limitkii plus infinity, waana markaas powerka waa inuu yahay even yahay. Even yani waxaa waaye waa markuu yahay dhaban yahay. Maskaxda ku hay xifdiga waxaan oo kale waa la xifdiyaa si aad dhow limitka markaa uga shaqeynaysa si toos ay kuugu soo baxdo aadan u arkin natiijada ku soo baxda inay khalad tahay. Okay, limitka markuu x ay u socoto plus infinity ay u socoto x waxay limitka kuu soo baxay wuxuu noqonayaa plus infinity. Limitka markuu asagana uu u socdo x ay u socoto negative infinity waxaa kuu soo baxaysa negative infinity, laakiin shardiga waxaa waaye waa n inay tahay odd kisi waa inay tahay. N markay odd kisiya tahay labadooda midba midkuu yahay uu kuu soo baxay. X markay plus ku socoto plus infinity yaa kuu soo baxaysa, markay minus infinity u socoto minus infinity yaa kuu soo baxay. Okay, limitka markuu isu qaybsan yahay oo 1 over xaaga x iyo wax sidaas oo kale ay tahay x-na ay u socoto tun meesha lagugu qorayo dhan waa ffx waa inaad taas ogaato. X-na ay u socoto plus iyo minus infinity maxaa ii soo baxaya mar walba waxaa kuu soo baxaya taas 0 waxay la mid tahay 0 sidan u qorataya oo minus powerkiiya dhahdaya 0 waa kuu soo baxaysa iyadana maskaxda inaad ku hayso. Hadhow markaa waxyaabahan ka shaqaynaysid waxaad ogaanaysaa waxaan inay muhiim yihiin ood u baahan tahay ood maskaxda inaad ku hayso ay tahay. Okay, waxaa kuu soo hartay tan afaraad limitka x wuxuu u socdaa waxaa la yidhi x waxay u socotaa plus iyo minus infinity, plus infinity or minus infinity yani mar haddii laisdul saaro saasay ka dhigan tahay. Yani waxay ka dhigan tahay infinityda mar waa minus marna infinitydu waa plus.
yacni markay u socoto plus ama ay u socoto minus infinity f of x waxay noqonaysaa yacni qiimaheeda waxay la mid noqonaysaa mar plus infinity marna waxay noqonaysaa ama waxay noqonaysaa minus infinity. waxay ku xiran tahay la yidhi markaas digriiga polynomialka mathalan x wixii korkeeda ahaa wixii power ay wateen ay ku xiran tahay, ama waxay ku xiran tahay sidoo kale waxay ku xirnaanaysaa powerka ama waxay ku xirnaanaysaa horgalaha calaamadda uu wato, horgalaha ugu horeeya calaamadda horgalaha mid walbaba horgalaha hogaaminaya ama hor socda xta calaamadda uu watay ku xiran tahay. yani mathalan 3x kana waxaa la yidhahdaa horgala ama calaamaddu wato hadduu plus wato iyo hadduu minus wato, miduu wato bay ku xiran tahay tan natiijada soo baxaysa labadan. iyo sidoo kale waxay ku xiran tahay powerka digriiga uu wato, hadduu even yahay hadduu odd yahay wuxuu yahay ku xiran tahay. marka taa waa inaad ogaato, tan mar walba waxay ku xiran tahay labadan qiimo, labadan shardi waa in la helo. labadaas shardiya kala badbedelaya calaamadahooda, imaa ka dhigayo minus oo kana ama ka dhigayo plus oo kana. hadduu plus noqdo waa horaan uu soo sheegnay meeshan jadwalkaanan kusoo waadixinay wuxuu yahay iyo siduu noqonayo. jadwalkan meesha ku qoran tablekaanan kusoo sheegnay wuxuu noqonayo hadduu plus yahay iyo hadduu minus yahay. mar walba marka labadan waxaa ku xiran tahay horgalaha x wuxuu noqdo, coefficientigaas wuxuu noqdo, calaamadda uu qaato ayay ku xiran tahay, iyo waxay ku xiran tahay digriiga polynomialka ay qaadato, labadaasay ku xiran tahay tan. waa taasna waa inaan ogaano. okay, mithaaladan balan fiirino. mithaalka ugu horeeya saad u jeedo meeshan limitkan x waxay u socotaa infinity oo plus infinity. okay, f of x na waxaa lagu siiyey qiimahan. waxaad ogaataa marka waxaa jira qaanuun markaad rabto inaad limitkan oo kala hesho, waxaad fiirinaysaa denominatorka ama hooseeyaha, waxaad fiirisaa powerka ugu weyn, markaasaad waxaa u qaybinaysaa powerka ugu weyn ama xta powerka ugu weyn wadata waxaa u qaybinaysaa mid walba oo ka mida qiimayaashan meesha ku qoran. hadda saan aragna meeshan denominatorkan waxa ugu weyn x ay wadato, powerka ay wadato waa 3, waa kan, waa x cube. x cube tana intaa qaado oonan la soconin numberkan ayaad waxaad u qaybinaysaa halkan iyo meeshan iyo meeshan iyo meeshan, kulli mid walba oo ka mid a qiimahan aad u qaybinaysaa. waa qaanuun markaad rabto inaad soo saarta limitka sidaan oo kale ah oo xna ay u socota infinity ama plus ama minus. okay, eeda ugu horeysa aan soo qaadano limit x waxay u socotaa infinity, x waxay u socotaa plus infinity. marka kuwan la isiiyey saan sheegnay maxaan sameynayaa, meel walba waxaan u qaybinayaa hooseeyaha xta ugu powerka badan, xta ugu powerka badan hooseyahana saan sheegnay waa x cube tana meel walba oo u qaybinayaa. marka waxaan sameynayaa sidoo kale waan soo qaadanaya, waxaan leeyahay 4x square loo qaybiyey x cube plus 7x loo qaybiyey x cube minus 1 loo qaybiyey x cube, kulligood waxaa sii hoos yaala 3x cube loo qaybiyey x cube minus 14x square loo qaybiyey x cube plus 3 loo qaybiyey x cube. maxaa ii soo baxaya marka, waxaan leeyahay haddana fiiri limit waxay la mid tahay limit x waxay u socotaa infinity. hadda marka waxaan leeyahay marka waan ka shaqeynayaa, seen uga shaqeynayaa marka waxaan leeyahay hadda fiiri tan 2x x square iyo x cube a meeshan yaal,
x square iyo x cube maxaa iiga soo haraya waxaa soo haraya labadan x waxay la baxaysaa laba x oo hoostaana markay la baxda meeshan waxaa soo haraya 1 meeshan maxay soo haraya hal x 1kii meeshan haddaan ku dhufto afartan waxaa soo baxaysa 4 marka meeshan dhan waxaa iiga soo baxaya 4 over x waxaan leeyahay 4 over x plus tanna sidii oo kale aan ku sameynaya iyadana xtan halkan x waxay la baxaysaa waan isu qaybinaya way isu qaybsan yihiin halkan x iyo hal x oo meeshaana la baxaysaa meeshan waxaa iigu haraysa x square meeshaana xtan way tegaysaa waxaa soo haraya marka 1 1 lagu dhiftay 7na waa 7 marka waxaa soo baxaysa 7 over x square tan kale iyada sideeda usoo qoranaysaa maadaama meesha x oolin sideeda usoo qoraysaa waxaad leedahay marka waa soo guurinaysaa 1 over x cube hoostiya kuu soo hartay sidii oo kale iyadana ku samaynaysaa tan waa x cube tanna waa x cube labadooda waa isla baxayn meesha waa 1 1 lagu dhiftay 3 maxaa soo haraya 3 minus tan x square iyo x cube waa sida tan oo kale labadan x waxay la baxaysaa laba x oo hoostaana meeshan waxaa soo haraysa 1 meeshaana waxaa soo haraysa hal x halkii 1kii inta haddaan 14kii ku dhufto wuxuu noqonayaa 14 meeshan dhan marka waxaa kasoo baxaysa 14 over x waa 14 over x tanna sideeda usoo qoranaysaa laanna waa raqam iyo x marka sideeda usoo guuri waxaan leeyahay plus 3 over x cube hadda markaan sidan u qorto sidan waxaan fiirinayaa meeshan hadda maxaan kusoo arkaynaa waxaa la ii sheegay haddaa aragto limit xna plus ama minus midkay rabtaa u socotee 1 over 1 tan waxay ka dhigan tahay 1 over 1 ama 2 ama 3 ay raqam markay ay kor ahaato xna ay hoos ahaato mar walba maxaa soo baxaya 0 meel walba marka maxaan ka dhiganaya aniga oo saasoo kale u samaysan 1 marka lagu leeyahay yani shardi ma aha 1 keliya inuu yahay meeshan waxaa laga yaabaa labay noqon kartaa 3 ay raqam markay tahay hoosna x taalo xna ay u socoto infinity plus ha noqoto ama minus ha noqoto mar walba waxaad ogaataa inay tan tahay 0 qiimayaashan 0 0 0 0 0 mid walba oo kuwaas kamid ah inuu 0 la mid yahay marka waxaan leeyahay tan waxay la mid tahay tan waxay soo baxaysa 0 tanna waxay soo baxaysa 0 tanna 0 tanna 0 tanna 0 meesha maxaa soo haray marka waxaa ii soo haray marka limitkan dhan muxuu la mid yahay markaas waxaa soo haraysa kor waa 0 hoosna waa 3 hoos 3 daana soo hartay korna waa 0 plus 0 minus 0 waa 0 marka 0 haddii loo qaybiyo 3 maxaa soo haraya waa 0 marka limitkan dhan waxaa iiga soo baxaya limitkan la isiiyey x markay u soconayso infinityga waxaa kasoo baxaya 0 y-da maxay noqonaysaa 0 sidoo kale b-da soo qaada ayadana b limit x waxay u socotaa negative infinity marka haddana maxaan fiirinaya aniga denominatorka midka ugu powerka badan waaba hal x meesha ta x ugu powerka badan hal x meesha taala waa x to the 4 meel walba kor iyo hoos waxaa u qaybinayaa x to the 4 waxaan leeyahay marka 15 x to the 4 loo qaybiyey x to the 4 plus 3 x cube loo qaybiyey x to the 4 minus x square loo qaybiyey x to the 4 plus x loo qaybiyey x to the 4 plus 4 loo qaybiyey x to the 4 kulligood loo qaybiyey ayagana 5 x to the 4 loo qaybiyey x to the 4 plus 17 loo qaybiyey x to the 4
sidii hadda aan yeelno kala yeel marka iyadana waxaad leedahay limit x waxay u socotaa negative infinity. marka mid walba u qaybi haddana sidii oo kale isu qaybi. labadan way isla baxayaan, meesha maxaa ii soo haraya 15, kan maxaan leeyahay waa 15 plus tan saddexdan x, saddex x oo hoose ay la baxaysaa, meeshan waxaa kusoo haraya hal, meeshan hal x aa kusoo haraysa, meeshana 1 waayo waa 3 over x waxay noqonaysaa waa 3 over x minus tan kale waa 2x, hoos waxay la baxaysaa 2x oo kale. labadan x hadday 2x meeshan la soo baxdo waa 1 over x square. waxaan leeyahay 1 over x square inaan deqsiyaan isku dayaya. okay, tan kale ii soo hartay marka iyadana halkan x, hal x oo meeshaana la baxaysaa, maxaa soo haraya waa 1 over x cube. waxaan leeyahay plus 1 over x cube tana igu dambeysa ay soo hartay, tan sideeda usoo gurinaysa laana waa 4 over x to the 4. marka wax x oo kale kor saaran male, waxaad la bixbixisa male, waa inaad sideeda usoo qorato. waxaan leeyahay marka plus 4 over x to the 4. sidii hadda aan samayno kala samee marka. waxaan samaynayaa marka tan 15ka sideeday u qoranaysaa soo ma? 15ka waxaan leeyahay marka meeshan ku qoro equal 15 plus tan kuwan kale maxay noqonayaan ayaga, laakiin kuwan kale oo dhan waxay noqonayaan, kan wuxuu noqonayaa 0, kan wuxuu noqonayaa 0, kan wuxuu noqonayaa 0, kan wuxuu noqonayaa 0. hoostii aa kuu soo hartay, hoostiina sidoo kale samee, labadan way isla baxayaan, meeshaas waxaa kuu soo haraya 5. tanna sideeda usoo guurinaysaa soo maha, plus 17 over x to the 4. marka tan maxay noqonaysaa 0. meeshan tan kuwaan oo dhan waxaa iga soo baxay 0 loo qaybiyey, kuwaan oo dhan waxaa iga soo baxay 0, waata 0 aan iri. tanna waxaa ii soo haraya, tan waa 0, tan waxaa ii soo haraya 5, tan waxaan leeyahay over 5. marka 15 haddii 0 lagu daro waa isla 15kii loo qaybiyey 5. maxaa ka soo baxaya marka 5 hoos u qaybi waa 1, 5 kor u qaybi waa 3. meesha dhan waxaa ka soo baxay 3. limitkan marka isagana p ama b limitka x markay u socoto negative infinity, natiijada iiga soo baxaysa ffx ama y waa 3. y waxay u socotaa ama ay u dhowdahay ama la mid tahay 3. okay, sida kanaan tirtirayaa, markaasaan meesheeda ku qorayaa, boos ma hayno. okay, sida marka haddaan soo qaato c limit x waxay u socotaa infinity oo balasa. marka haddana sidoo kale fiiri, denominatorka waxa ugu weyn oo bahalkii maxaa waye, denominatorka waxa ugu weyn oo x oo ugu power weyn waa x keliya. marka x taasaan waxaan u qaybinayaa kor iyo hoosba. okay, waxaan leeyahay marka x cube loo qaybiyey x plus 5x loo qaybiyey x minus 1 loo qaybiyey x, hoostana waxaa waaye 10x loo qaybiyey x plus 3 loo qaybiyey x waxay la mid tahay limit dheh x waxay u socotaa infinity. marka kuwii sidii hadoo kale oo isla bixbixinayna isla bixitaan waa 3 cube x, hoosna waa hal x. halkan x waxay la baxaysaa hal x oo kora, waxaa soo harayso kor x square.
hoosna waa hal hoos hadduu tagana lama qoro. marka waxaan leeyahay waa x square kora plus tan waxaa isla baxaya labadan x waxaa iisoo haraya 5 tan waxaan leeyahay plus 5 minus kan sideedan usoo guursanayaa oo waxaan la bixiyo male waxaan leeyahay 1 over x loo qaybiyey tan waxaa isla baxaya labadan x waxaa soo haraya 10ka waxaan leeyahay 10 plus tanna waxaan la bixiyo male sideedan usoo qoranayaa waxaan leeyahay 3 over x. okay sidii oo kale haddana samee marka tan x square plus 5ka sideeday u qormaysaa laakiin meeshan waxaa iisoo haraya waa tan maxay noqonaysaa tan waa 0 tanna waa 0 sooma marka maxaa iisoo haraya marka meeshan oo ii yaalo meeshan waxa iisoo haray waxaa waaye waxaa ka soo haray meeshan x square plus 5 over 10 mar haddaa aragto inay x kor soo martay waxa ay u socotana ay infinity tahay ilaa xtan wax lagu bedelayo waa infinity maanta o dhan waxaanan isla bixbixinayno kuwaan oo 0 aan dhahayno dhan oo kuwaan aan dhahayno waxay lamid yihiin tan 0 lamid tahay 0 soo baxaysa waxaa waaye tana infinity tan maadaama infinity tahay infinity haddii loo qaybiyo tiro waa 0 marka saas awgeeda marka anaga hadda infinity-ga kor joogto kor infinity mar hadday joogto nambaradan kale oo dhan qiimo ma yeelanayaan waxa ka xog badan waxaa waaye waa infinity marka natiijada kusoo baxaysa taas maxay tahay waa infinity oo plus marka c limitkan oo dhan markii infinity ay x infinity u socoto waxa iisoo baxayo infinity marmarka qaar waxaa lagu siin karaa sidaan oo kale lagu siin karaa marka adaa waxaa la rabaa inaad marka aad soo saarto limitkii marmarka qaar saan oo kale lagu siin karaa ffx waxaa laga rabaa marka suluugeeda ama waxay tahay inaad soo saarto marka waxaad samaynaysaa waxaad leedahay limit adiga limit ahaan waa inaad u qorato ilaa wax lagu weydiinayo waa limit sooma okay waxaad leedahay x waxay u socotaa infinity waxaad soo qaadanaysaa marka tan mid walba marka waxaad samaynaysaa waxaa u qaybinaysaa sidii aan sheegaynoo kale waxaa u qaybinaysaa hooseeyaha midka ugu baawarka badanna waa x marka kaas qaado mid walba u qaybi marka waxaad tirahdaa 3x square loo qaybiyey x minus 2x loo qaybiyey x plus 1 loo qaybiyey x kulligood loo qaybiyey x minus x tanna u qaybi minus 1 loo qaybiyey x maxaa soo baxaya sidii oo kale dheh tan hal x iyo hal x oo meeshaan isla baxay waxay soo haraysa markaas 3x labadan way isla baxayaan waxaa soo haraysa 2 oo minus wadato tan waa 0 tan labadan waa isla baxeen waxaa soo haraya 1 tanna waa 0 meesha dhan maxaa ka soo baxaya marka waxaa soo haraysa 3x minus 2 3x minus 2 markaad infinity ku bedesho meeshan xta waxaa kusoo baxaya marka infinity markaas saasaa samaysanaysaa markaad saan oo kale ay kugu dhiganto adiga limit ahaan lagu siinin laakiin sidaas u qoro adiga limitka ka dhigo mararka qaar waa lasii wadaa waxa lasoo saaraa sline asymptote wax la dhaho yacni see usoo saaraysaa kale aljabraha lagu qaataa waxaad ku soo saari kartaa waxaad leedahay labadii tiro se isugu qaybsanayeen isugu qaybinaysaa qaybsashaan sida qaybiska caadiga looga shaqeeyo kale waxaad leedahay saasoo kale calaamadaasa qoraysaa marka tan kore waxaad ku qoraysaa gudaha dee sida isu qaybinta caadiga 3x square minus 2x plus 1 loo qaybiyey x minus 1 marka waxaad fiirinaysaa sidii xisaabta isu qaybintoo kale marka ugu horeyso waxaan ka shaqeynayno waa labadan term soo maha labadan ugu horeyso maadaama tanba laba tahay marka waa waxaad raadinaysaa haddaad ku dhufato tan ku siinaysa tan ama u dhow
waxa ugu dhow hadda haddaan ku dhufto 3x square isiinayo waa 3x sooma 3x hadda 3x haddaan kan ku dhufto waxay siinaysaa sideedaba maadaama minus uu jiro waa inaa minus qorato horta qows fur tan 3x haddaan ku dhufto waa 3x square tan haddaan ku dhufto 3x na waxay noqonaysaa minus 3x haddaan 3x 3x waxaan ku dhuftay tan waxay siisay 3x square 3x waxaan ku dhuftay minus 1 waxay siisay minus 3x qowska xir kala jar marka tan waxaa ogaataa tan minuska kan ay ku dhacaysaa tan balaasay noqonaysaa maskaxda waa inaad taas ku hayso si fiican iyo la soco tan balaasay minusay noqonaysaa sorry waxay noqonaysaa minus tanna waxay isu bedelaysaa plus marka tan minus iyo tan plus labadan way isla baxayaan sooma meeshan waxaa waaye waa zero tan iyo tan way kala jarmayaan waxaa soo haraya 2x marka laga jaro 3x oo plus wadato waxaa soo baxaysa 1x meesha marka maxaa igu soo haray 1x waxaan soo dejisanayaa plus 1kii ugu dambeeyey oo kan ah kana soo dejinayaa haddana waxaan fiirinayaa marka wax haddaan ku dhufto isiinayo tiro haddaan ku dhufto inta isiinaysa tan ama u dhow ama taasoo kale isiinaysa waxa ugu dhow oo isiinayo muxuu yahay waa plus 1 waaye fiiri plus 1 markaan kan ku dhufto x waxay noqonaysaa waa x plus 1 haddaan minus 1 ku dhufto wuxuu noqonayaa minus 1 sooma plus 1 iyo minus 1 haddii laisku dhufto waa minus 1 marka qoos waa inaad geliso laazim maadaama ay ka jar meesha jirto calaamada oo minuska marka kan markii minus lagu dhufto x markii minus lagu dhufto waa minus kan laakiin wuxuu isu bedelayaa isaga plus tan iyo tan marka maxay noqonayaan way isla tagayaan meesha waa zero labadan laakiin way isku darsamayaan maadaama tanna plus tahay tanna plus ay isu bedeshay ani minuska aanan ku dhuftay mid walba ogow minuska aanan ku dhufanaya way isbedelaysaa marka calaamadda markay isbedesho waa kala jaraysaa hadday kala jarnad waa isku daraysaa hadday isku darsamayso hadda tan markaa minus ku dhuftatay minus x ay noqotay kan minuska markaan ku dhuftay plus u noqday labadan waa inay isku darsamaan marka meesha maxay soo haraya labadan waa isla baxeen maadaama labadan isla baxeen waxaa meesha ii soo haray plus 1 lagu daray plus 1 waa 2 okay marka waxaad leedahay akhiiran waxaad leedahay ffx waxay la mid ahayd soomaha 3x square minus 2x plus 1 loo qaybiyey x minus 1 waxay la mid tahay marka maxaa loo qoraa xisaab marka matalan waxaa kuu soo baxday 9 waxa u qaybisay 4 waxa ugu dhow maxaa waaye waa labo marka lagu dhufto waa 8 waxaa kuu soo haray hal see loo qoraa markaa qorayso kan muxuu noqonayaa koruu aadayaa sooma kanna muxuu noqonayaa hoose ayuu noqonayaa kanna muxuu noqonayaa dhinacuu tagaya sidii oo kale taad marka ka dhigaysaa marka waxay noqonaysaa waa 2 1/4 saasay noqonaysaa soomaha sidii oo kale u qoraysaa tan waxaad leedahay marka waxaan leeyahay tan oo geesa 3x plus 1 lagu daray tan maadaama plus ay wadato waxaan leeyahay lagu daray 2 loo qaybiyey tan oo ah x minus 1 marka waxaa ogaataa tan iyo tan waa isku mid waxaa la yidhaahdaa tan marka maxaa la dhahaa intaan keliya maxaa lagu magacaabaa tan qaybta aad u qaybisay waxaa lagu magacaabaa slant asymptote haddii oo aad rabto inaad meesha ugu dambeysay gaarsiiso saasaa looga sii shaqeeyaa marka aad soo saartay limitkeeda hadaad rabto ayagana waa isu sii qaybinaysaa markaas waxaa soo saaraysaa natiijadan tan markaad soo saarto waxaa soo saartay slant asymptote waa khadka yaryar ee u dhexeeya markaad sawirto graafka sawirto kaasaa la dhahaa suu limitka uu ugu dhagan yahay ama uu ugu dhow yahay kaas ugu sii socdo
okay mithaalkan aan fiirin asagana sida nafsi kii hadda aan uga shaqeynayno kale uga shaqeynaysaa waxaad leedahay limit x waxay u socotaa infinity tanna sidoo kale powerka ugu yar oo x aad mid walba u qaybinaysaa waa 2x square loo qaybiyo x denominatorkan ka hadlaya mar walba ogow hooseeyaha powerkiisa ugu badan ayaad u qaybinaysaa mid walba lagu daray 7x plus 1 mid walba waxaan u qaybinaya aniga x kana waxaan u qaybinayaa x waxaan leeyahay marka x loo qaybiyo x plus 2 loo qaybiyo x tan hal x ay iga soo harayso waa 2x tan iyo tan waxaa soo haraysa 7 tan waa 0 tan waxaa soo haraysa 1 tanna waa 0 meesha maxaa soo baxay marka waa 2x plus 7 halka hoose lama qoro marka waan sheegnay waxaan niri mar haddaba x meesha taalla waxaa waaye waa infinity limitkii saasaa soo baxay marka islayn asymptote kasaan kusoo saaraya isagana sidii hadda aan samaynayno kala samaynaysaa tii hore waa u qaybinaysaa waa 2x square plus 7x plus 1 oo loo qaybiyey x plus 2 wax haddaan ku dhufto hadda ay siinaya ani markay maadaama ay laba term tahay oo laba qayb ay tahay tan kore tanna laba qayb waa inaan ka dhigto okay marka waxaan leeyahay tirada iigu dhow maxaa waaye waa haddaan tan ku dhufto i siinaysa 2x square tan kale mushkila laakiin tan wax ku siinaya ugu horeeyaa la rabaa tan ugu horeeya waxa ay siinaya waa haddaan ku dhufto 2x 2x haddaan x ku dhufto waa 2x square hoosgeli mar walba 2x haddaan 2 ku dhufto waa plus 4x meeshan minus ayaa yaalo ilaa waa ka jaraynaa waa sidii qaybta caadiga laysu qaybinayo kale marka mid walba calaamadeedu way isbedelaysaa haddana tan waxay noqonaysaa minus tanna waxay noqonaysaa minus okay marka maxaa soo baxaya labadan way isla baxayaan soo maaha leanno tanna plus tanna minus way isla tagayaan waa 0 7 iyo 7x oo plus wadata iyo 4x oo minus wadatana way kala jarmayaan waxaa soo harayo 3x plus 1 soo dejisanaysaa plus 1 kana soo dejinaysaa waxaad leedahay marka plus 1 marka haddana waxaa fiirinaysaa wax haddaad tan ku dhufato tan haddaad ku dhufato tira ku siinaysa tan ama u dhow waxa u dhow muxuu yahay waa 3 number 3 adiga mar walba waxaa fiirinaysaa wax haddaa hadda tan ku dhufato tan ugu horeysa ku dhufato 3x ku siinaya maxaa waa 3 oo plus laanna tan waa plus tanna waa plus 3 haddaa tan ku dhufto meeqa waaye waa 3x haddaan 3 ku dhufto 2na meeqa waaye waa plus 6 qoysgeli waa minuskii mar walba marka muxuu bedelayaa asna calaamadihii ay wateen tan minus ay noqonaysaa tanna minus okay marka maxaa ii soo baxaya marka akhiiran waan kala jarayaa labadan waa 0 tan iyo tanna way kala jarmayaan waxaa soo haraya minus 5 marka maxaan u qoranayaa niri waxaan leeyahay ffx waxay la mid tahay 2x square plus 7x plus 1 loo qaybiyo x plus 2 waxay la mid tahay tan sidii aan hadaayi sheegayno kale u qoro tan ugu horqor waa 2x plus 3 tana marka waxay tahay marka slight asymptote mar walba taas ogow lagu daray hadda ma dhehaysid tan minus ay wadataa waa inaan minus dhaho minus 5 waa inaan dhaho marka haddaad rabto plus inti tiraada minus 5 waa ku qoran kartaa oo saan waa u qoran kartaa plus minus 5 loo qaybiyey tan hoose oo x plus 2 waad dhihi kartaa mar walba kana muxuu yahay tii hore xataa kana wuxuu yahay slight asymptote wax la dhaho mar walba taas ah slight asymptote marka mar walba waxaad leedahay y waxay la mid tahay slight asymptote-ka waxaa y waxay la mid tahay 2x plus
3 wakaas. kanna sidoo kale islayna asymptotka y maxay la mid ahayd, y waxay la mid tahay 3x plus 1. okay, videogan maanta intaasaan ku joojisanaynaa. insha allah waxaan isku dayayaa mar walba inaan kusoo dadaalo aan soo hormariyo ama soo boobsiiyo. marka insha allah intaasaan ku ekeysanaynaa. wixii talo iyo tusaalaha mar walba hoos aan isugu soo hagaajino. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.